xanuunka caadada waa casiraad mise majiir xanuun leh laga dareemo caloosha qaybta hoos. dad badan ayaa casiraada ka cabanaya ka hor mise xilliga caadada. haweenka qaar xanuunka saameyn badan kuma laha halka qaar kalena uu saameyn ku yeelanayo sida inuu xakadgeliyo caado maalmeedkooda inta u dhaxaysa 1 ilaa 3 maalmood. menstruation pain waa ereyga afka qalaad lagu dhaho xanuunka caadada. xaalado caafimaad ayaa keeni kara casiraada sida xaaladaha lagu kala magacaabo endometriosis, uterine fibrosis. daweynta waxay ku xidhan tahay marka hore in la ogaado waxa si dhaba u keenay majiirka. xanuunka aanu keenin xaalado kale caafimaadka la xidhiidha waxay u badan tahay inuu yaraado gaar ahaan marka ay da'da korodho iyo dhalmada kadib. calaamadaha xaaladani lagu aqoonsado waxaa ka mid ah calool majiir. xanuunka wuxuu bilowdaa 1 ilaa 3 maalmo ka hor caadada. lalabo, madax xanuun iyo dawakhaad. waxaa isbedela calool socodka. waxaad u baahan tahay inaad la kulanto dhakhtarkaaga mise dhakhtarka kuugu dhow haddii xanuunka caadada bil walba saameyn ku yeelanayo caado maalmeedkaaga. ilmagaleenka wuxuu caado u leeyahay inuu isu soo ururid sameeyo xilliga caadada. hormoonada qaar sida prostaglandiniska ayaa kiciya xanuunka iyo isu soo ururidda ilmagaleenka. sidaa daraaddeed haddii uu xaddiga hormoonkani korodho wuxuu sare u qaadayaa xanuunka. xanuunada kala keeni kara waxaa ka mid ah premenstrual syndrome. xaaladani waxaa keena isbedelada ay sameynayaan hormoonada jirka. isbedeladani waxay dhacaan 1 ilaa 3 asbuuc ka hor xilliga caadada. waa sababta loogu magacaabay calaamadaha caadada ka hor premenstrual syndrome. endometriosis waa xaalad caafimaad xanuun badan. waxay unugyada ilmagaleenka koriin ku sameynayaan meel ka baxsan ilmagaleenka sida ugxansidayaasha lagu magacaabo fallopian tubes. daawadaha sharafta badan waxaa kaloo jira qaabab kale lagu daweyn kara xanuunka caadada. adigoo jooga gurigaaga waxaa ka mid ah in caloosha duugis mise massaging lagu sameeyo, in la joogteeyo jimicsiga, in la qaato cunada fudud, in la qaato dawooyinka la iskaga yareeyo xanuunka. xaaladani waxaa unuglaan kara dadka qoyskooda qof ka mid ah xaaladani lahaa. haweenka ku qaangaadhay da'da 11 sano. haweenka caado wareerka leh. casiraada caadada inta badani ma keento xaalad daran caafimaadka la xidhiidha, laakiin waxa uu xakad gelinayaa shaqada, iskuulka iyo caado maalmeedka qofka.